AI Artificial Intelligence caqliga macmalka ah uma malaynayo kelmadahan inay yihiin markii ugu horeysay aad maqashay. Haddaba application-ka loo yaqaan PixArt oo ah mid ka mid ah application-ada ugu fiican ee lagu edit gareeyo sawirada ayaa lagu soo daray AI kaas oo kaa caawinaya inaad si qurux badan u edit gareyso dhammaan sawiradaada. Haddaba si aan kugu faahfaahiyo update-kan iyo qaabka aynu u heli karno application-kan oo free ah ku soo dhawow muuqaalka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوري وهذا صاحبة قيمها بدن له كسوري وهذا تشيلسون إن شاء الله تعالى ما أنت مقالكم وحكي هذه دونا أبديت لجوسي ماي أبليكيشن كلاي قانا PixArt كاس أو لجوس صدري صدق نوع AI أما Artificial Intelligence وحلاي قانو عقلي معمل كا أي لجوس صدري كاس أو كعاوين دونا إن أسوي هذا على سقور بدنا نبدأ كريسته إنه أركض دونا فاهم أنت صدق نوع AI جاي لجوس صدري لكن كهر أنت أنا صدق هذا نوع إننا نقول ذكرين waxaan rabaa inaan dhowr shay ku xusuusiyo shayga koowaad aan rabaa inaan ku xusuusiyo waxa weeyaan haddii aanad application-ka si fiican u aqoonin ama ay tahay markii ugu horeysay aad aragto ama aanad aqoon u lahayn muuqaalo hore ayaan kasoo samaynay haddii aad naga daawanayso barta Facebook-ka ama YouTube-ka commentiga ugu hore insha Allah taala ayaan soo dhigi doonaa haddii ay bahwada inoo ogolaado sidoo kale waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo haddii application-kan oo 100% bilaash aad u baahan tahay commentiga ugu hore ayaan soo dhigi doonaa barteena Telegram ku geyn doonaa halkaas insha Allah taala ka download gareysan doontaa insha Allah taala haddii aad barteena Telegram ka hore ugu jirtayna waad mahadsan tahay ayaan ku leeyahay sidoo kale waxaan rabaa inaan xusuusiyo dadka iPhone-ka isticmaala ama dadka Europe iyo America jooga waxa laga yaabaa inaanu application-kan u install gareysmin haddii uu install gareysmana waxa laga yaabaa inay lacag weydiiyaan sida awgeed iyagu insha Allah taala waxaan rajeynayaa in application-ka gadan doonaan laakiin dadka kale Android ka haysta wadanada aan sheegayna aan joogin iyaga waxaan hubaa 100% in application-ka si free ay u isticmaali doonaan insha Allah taala sida awgeed waxaan rabaa inaan idin tuso saddexda nooc ee AI-ga ama Artificial Intelligence-ga sida awgeed marka ugu horeysa waxaan soo furi doonaa application-ka loo yaqaan PixArt ayaynu soo furi doonaa kadib markaynu application-ka PixArt soo furnay sida ku muuqata halkan calaamadda wadarta ayaynu hal mar ku dhufan doonaa si aynu sawir ugu soo darno kadibna gallery-ga ayaan sawir kaga soo darnay sawirkan aynu ku soo darnay ninkan Afrikaanka ah insha Allah taala ayaynu isticmaali doonaa kahor inta aynaan saddexda AI aynaan isticmaalin waxaan rabaa inaan ku tuso haddii optionadan ama waxyaabahan aynu isticmaalana ay ku soo bixi waayaan si dhakhso leh kugu soo bixi waayaan marka install gareysato waxa laga yaabaa oo dabeecadaha aan ku arkay application-ka kamida in dhowr cisho kadib ay ku soo galaan optionadani marka insha Allah taala ka shakiin waa is oran mala wax kale la soo degtay laakiin marmarka qaar bay yara dahaan بعدما هو application-ka yahay mid aan Play Store-ka laga soo degin oo meel kale aynu ka soo dejisanay oo marka aynu farsamaynay waxa macquul ah in update-kan uu xoogaa ka yara daaho marka insha Allah taala sidaa ula hayso sidoo kale Play Store-ka ama App Store-ka marna ka soo update gareyn sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu lacag weydiiyo haddaad soo update gareyso sida awgeed waxaan rajeynaynaa si fiican insha Allah taala isku fahanay qaybta koowaad ee AI-ga insha Allah taala bilaaban doona ku soo dhawaada AI-ga koowaad AI-ga koowaad waxa uu naga caawin doonaa in aynu tusaale ahaan dharka aynu ka bedelno sawirkan inagoo amar siinayno le dharka ka bedel inagoo tusaale ahaan background-ka gebigiisa iska bedeli karna ama background-ka walax ama qof ama wax ku daba taagan intaad tusaale ahaan doorato aad select gareyso ayaad remove gareyn kartaa ama walax kale ayaad ku bedeli kartaa sidoo kale okyaalo aynu u xidhi karnaa timahan ka bedeli karnaa sida awgeed waxay ku xidhan tahay mar walba adigu amarka aad siiso AI-gani si caadi ah loola hadlaya sida qofka loola hadlo amar baad siinaysaa intaad qoraal caadi ah u qorto amarkaas uu isagna ka jawaabi doonaa insha Allah sida awgeed marka ugu horeysa waxaan ku dhufan doonaa si aan AI-ga idin tuso halkan ay ku qoran tahay tools kadibna waxaan ku soo dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay AI replace kadib marka aynu bartaa tagno waxay noo soo bixi doonaa waxyaabahan oo dhan halkan brush tool ay ku qoran tahay waa inay ku select gareysan tahay halkaas markay ku select gareysan tahay kadibna qaybta aad rabto inaad wax ka bedesho ayaad select gareyn doontaa tusaale ahaan waxaan rabnaa inaynu finaanadan ama garankan aynu ka bedelno kadibna aynu u xidhno suit ama waxyaabo kale sida awgeed marka ugu horeysa saasaynu dharka u select gareynaynaa saa inagoo gacanteena u adeegsanayna waayo brush toolkan ayaa inoo select gareysan hoosta saasaynu insha Allah taala u dhamaystiri doonaa gebigiisa waxaan ka dhigi doonaa casaan ama guduud kadibna waxaan kusoo dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay replace kadibna halkan waxaan ku oran doonaa af English baynu kula hadli doonaa af Soomaali maaha waxaanu leenahay fadlan u xidh suit blue ah marka haddii luqadda English-ku kugu adag tahay waxaad isticmaali doontaa application-ka ama barnaamijka loo yaqaan Google Translate kaas insha Allah taala ku caawin doona inagu waxaanu ku nidhi fadlan u xidh
suud blue ah kadibna suudka bluega qaabka uu xidhan insha Allah taala aan eegi doonaa kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay generate image kadibna image kan suganaa ama sawirka waxyaabaha uu soo xidhayna suganaa insha Allah okay sida ku muuqata waxa uu soo saaray laba sawir ayuu halkan soo dhigay labada sawir kolba midka adigu aad ku qanacdo ayaad dooran doontaa kaas insha Allah taala isticmaali doontaa sida awgeed inagu waxaynu ku qanacnay sawirkan aynu ku qanacnay sida awgeed kaas insha Allah taala isticmaali doonaa laakiin haddii tusaalahan aad ku qanci weydo laba shay labadaba waad samayn kartaa inaad qoraalka dib ugu noqoto oo si aad isku fahantaan qoraal faahfaahsan aad u qorto bacdama aqli macmal waxan uu yahay oo qof bini aadam ahayn waxa sameeyay doontaa inaad qoraal faahfaahsan u qorto ama haddii aad qoraalkaagu faahfaahsan iyo saxsan iyo aad hubto waxa samayn kartaa halkan ay ku qoran tahay show more result ayaad ku dhufan kartaa dibeetana halka markaad ku dhufato waxoogaa buu wareegi doonaa waxa uu ku soo saari doonaa maxay laba sawir oo kale markastoo aad ku dhufatana waxa uu ku soo saari doonaa laba sawir oo kale marka imka laba sawir oo kale uu noo generate gareeyay walibana suit wuxuu soo saaray yara style ah oo tusaalahaan line yara leh kaas oo kale kan oo kale waxa weeyaan tayga ayuu kaga duwan yahay marka insha Allah taala inagu sawirka midkaynu dooran karnaa dooqaagay ku xiran tahay markaad select gareynayso laba shay baad samayn kartaa iyada lafteeda inaad download tiraahdo oo gallery-ga ku galo oo halka gallery-ga aad u doonato ama haddii aad rabto inaad editing-ka sii wado oo waxaan dib u sii edit garayso oo shaqooyin badan ka sii qabato PixArt-ga dhexdeeda inaad hal mar taabato tusaale ahaan uu kaasan iska taabanayna hadda ma download gareynayno laakiin wuxuu nageyn doonaa PixArt-ga sida awgeed hal mar baynu taaban doonaa kadib markii aan taabanay sida kuu muuqato waxa weeye PixArt-ga dhexdeeda inuu nagu celiyay marka wali hadda AI-gii baynu dhex taaganahay haddii tusaale ahaan walax ama qofku daba taagay walaxdaasaad select gareyn doontaa halka replace baad ku dhufan doontaa kadibna waxaad oran doontaa walaxda waxaad ku bedeshaa tusaale ahaan geedka ay ga dambeeyo waxaad ku bedeshaa dhagax ama dhagaxa ay ga dambeeyo geed ku bedel ama qofka ay daba taagan ama gadaasheeda taagan waxa ku bedel whatever you can ayaad oran kartaa markaad shaygii select garayso taa insha Allah taala fahantii baan rajaynaya sidoo kale haddaad rabto inaad okyaalo u xidho maapkii okyaalaha samayn doontaa saasoo kale u samayn doontaa kadibna saasoo kale ayaad u samayn doontaa kadibna waxaad oran doontaa waxaad u xidhaa ay class ama muraayad noocaas ama mid san class waxaad doontaad oran kartaa marka adigu luqadda Englishka haddaad fahmi weydana barnaamijka la isticmaalay Google Translate-ka hore ayaan ku sheegay taa insha Allah taala fahantii baan rajaynaya laakiin waxaan samayn doonaa background-kan inuu ka bedeli doonaa u fiirso si aynu background-ku ka bedelno saasaynu oran doonaa u fiirso haddii markaa midabkani uu koornayaasha ama dharka soo dhex galo ama dhinacyo aan loo baahnayn uu kaa tago waxbaa ka warin AI-ga ku caawin doona marka intaa uu soo dhex galayna AI-ga insha Allah taala ina caawin doona marka insha Allah taala kama warwarayno kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay replace markaan guduud ka dhignay kadibna waxaan leenahay fadlan baynu leenahay bedel maxay background baa leenahay window marka ama daaqad ku bedel baynu leenahay daaqad ku bedel baan leenahay background-ka marka kadibna generate baynu oran doonaa kadibna waynu eegi doonaa nooca daaqadda ee inoogu soo bedelo inagoo mar walba nooc kale mar walba codsan karna sidaynu hore u samaynay marka haddaan ku qanacweyna ama qoraalkan dib ugu soo laaban doonaa sida kuu muuqata waxa weeyaan daaqadda uu sameeyey dabcan kuma aanan qancin kadibna waxaan kusoo dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay show more result waynu sugi doonaa kadibna waxa weeyaan laba sawir oo kale inoo soo generate gareeyay kadibna sawirkaas ka dooranaynaa sawirkaasaynu dooranaynaa hal mar baynu taabani kadibna gallery-geenu geyn doonaa insha Allah gallery-ga ma ahay waxaanu geyn doonaa PixArt-gan ka wadaa PixArt-gu haddayna dhex keenay sida kuu muuqata waxa weeyaan background-kiina waa ka bedelay laakiin haddii aad waxoogaa yara hadh buu hadaa leeyahay weli hadda waan ka bedeli karnaa halkii baan ku noqonaynaa laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso ama kuu sheego haddii tusaale ahaan waxyaabaha qaarkood kaa qaldamaan ama waxyaaba zaa'ida uu kusoo daro ama tusaale ahaan meelaha qaarkood uu banaan ka dhigo ama isa soo dhexgeliyo midabadii hore iyo waxyaabo kale oo lamida waxaad samayn kartaa meeshaasunbaad saa u select garayn doontaa saasoo kale markaad meeshaasoo kale u select garayso kadibna halkan ay ku qoran tahay replace baad ku dhufan doontaa kadibna waxaad ku qori doontaa maxay fix halka hagaaji bacdamaa hore uu generate gareeyey waxa ay ka yara qaldameen marka waa hagaaji intaasoo kelimaad ku qori doontaa isagaa kuu hagaajin doona weli hadday wax kaa qaldameen mar kalumaad ku sii celin doontaa marka waxaan assignment idinku dirayaa inaad iClass usoo xidhaan insha Allah taala haddii ay bahwoodri noo ogolaado marka sawirkana commentiga ugu horeeya insha Allah taala ayaan soo dhigi doonaa ama barta Telegram-ka ayaan soo dhigi doonaa marka commentiga ugu horeeya linkigaas wuxuu ku geyn doonaa maxay bartana Telegram-ka buu ku geyn doonaa waxaan rajaynayaa qaybtana si fiican insha Allah taala u fahanteen baan insha Allah taala rajaynayaa
إن شاء الله تعالى waxaan iskugu iman doonaa qaybta labaad ee AI-ga ama artificial intelligence-ga labaad. marka la kusoo dhawaada qaybta labaad insha Allah ta'ala waxaan ku baran doonaa inaynu sawirka aynu ka dhigi karno mid dhameystiran oo qofku uu taagan yahay ama baynu sawirka aynu ka dhigi karno waayo sawirka inta baynu haysanaa hadda laakiin waxaan ka dhigi karnaa sawir qof taagan qof kursi ku fadhiya qof alaam istacaam ubax haysta qof biyaalkiisa gacanta ku wadeefa waynu ka dhigi karnaa description keena ku xidhan tahay hadaba si aynu sidaas u sameeyno waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay tools kadibna waxaan ku soo dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay AI replace AI expand afwan hadaba halkan waxa inooga soo baxay waxa loo yaqaano AI expand ku wuxuu naga caawin doonaa sideen hore u sheegnay inaynu sawirka dhameystirno insha Allah ta'ala ayuu naga caawin doonaa sida awgeed qaybahana dooran kartaa waxaan dooran karnaa storyga Instagram storyga YouTube thumbnail Facebook profile all social media ama platform size kasta oo ka jira internetka halkan uu soo dhigay sida awgeed inagu hadda diyaar ma nihin waxyaabahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan sameeyno mid custom inoo ah ama inoo gaar ah si aynu u sameeyno waxoogaa binisa u soo jiidi doonaa sawirka si uu soo weynaado kadibna isaga ikhtiyaarkiisa ay inoo sameyn doonaa kadibna dooqeena ayaynu insha Allah ta'ala oran doonaa waxaa noo sameey sida awgeed qaybtaas soo jiiday oo fiirso saas baan soo jiiday ilaa meelahaas soo gaarsiiyay marka sawirka meelahaas uu soo gaarsiin doonaa kadibna waxa isaga ikhtiyaarkiisa abu hadda sameyn doonaa laakiin description ama qoraal baynu qori doonaa waxa leenahay waxa aniga haysta soo generate gareeyna oran karnaa sida ku muuqata hadda waxa inoo soo generate gareeyay qofkii oo haysta maxay waxyaabahan ku qorqoran yihiin sida awgeed hadda waxaas diyaar uma nihin waxaan rabnaa in waxa iska remove gareyno oo aynu leenahay oo kale aynu ku bedelano sida awgeed halkaas ay ku qoran tahay custom expand ayaan insha Allah ta'ala ku dhufan doonaa kadibna halkan aynu qoraal ama description bayna halkan ku qori doonaa waxa leenahay anigoo tusaale ahaan ubax haysta halkan ku soo generate garee marka insha Allah ta'ala waan eegi doonaa qoraal baynu ku qori doonaa kadibna qoraalkan aynu ku qornay insha Allah ta'ala ayaan leenahay waxaas noo generate garee waynu eegi doonaa insha Allah ta'ala wax soo baxa insha Allah okay sida kuu muuqata waxa weeyaan wixii amarkii aynu siinay waa uu qaatay waxa weeyaan hadda waxa uu haystaa ubax sida kuu muuqata waxa weeyaan gacmahan iyo waxa markii hore ma jirin iyo qaybaha halkaas inta markii hore ku joogay kadibna intan uu ku soo daray ubax iyo waxyaabahan marka insha Allah ta'ala qoraalka mar walba aad u qortay ku xidhan tahay hadii tusaalahan ku qanci weydo halkan ay ku qoran tahay show more result ayaad ku dhufan doontaa ama faahfaahintii qoraalka dib ugu noqon doontaa marka AI-gani waa beta weli ma dhameystirna waxa laga yaabaa waxyaabaha qaar kood inuu qaldo laakiin waxaan rajeynayaa in si fiican loo sixi karo waxyaabaha uu qaldo haddii description fiican ama qoraal fiican loo qoro marka insha Allah ta'ala qaybtan waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen qaybta saddexaad insha Allah ta'ala iskugu iman doonaa kusoo dhawaada qaybta saddexaad ee AI-ga ama artificial intelligence-ga oo ah qaybtii ugu dambeysay qaybtan insha Allah ta'ala waxay naga caawin doontaa in sawirka tayadiisa ama quality-giisa aynu kor u qaadno inagoo adeegsanna barnaamij AI ah oo hal mar aynu amar siinano inagoo wax qoraal aan sameeynin amar kaliya baynu siinana click kaliya bay naga xigta marka sawirkan tayadiisa ama quality-giisa ama muuqaalkiisa aynu kor u qaadi karnaa macnaha sawirkan haddii aan si fiican loo arkayn amaba waxoogaa shucaaci ku dhex jiro oo ka saari doonaa wuxuu ka dhigi doonaa sawir HD ah oo aad moodaysa in kamarad HD ah lagu qaaday sida awgeed marka ugu horeysa waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay retouch kadibna waxaan ku soo dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay HD portrait kadibna saasaynu amar ku siinay imika waxa weeyaan waxyaabaha halkan uu kugu soo qorayo waxyaabaha uu ka remove gareynaya sawirka mar walba shaqooyinka uu qabanayo mar walba halkan uu kugu siinayaa maxay faahfaahin buu ku siinayaa macnaha shaqooyinkaas aan qabanaya detail buu kugu sheegayaa marka AI baa isticmaalaya marka waxa la isticmaalaya maxay waa AI waa artificial intelligence ama aqliga macmalka waxaan rajeynayaa si fiican u fahanteen insha Allah ta'ala waxaan sugnaaba waa sawirka oo imaada okay sida ku muuqata halka sare horta waxa ku qoran before iyo after baa ku qoran halkan bartankana line ayaa ku qoran hada dhanka u jiidno qaabka uu sawirku u cadaanay waynu arkaynaa hadii aynu dhankan u jiidnana qaabka uu madoobaanay waynu arkaynaa dabcan maaha midabku waxa uu kor u qaaday laakiin waxa weeyaan macnaha qaabka uu macnaha HD uu ka dhigay baan ka muuqda ayaan ka wadaa imka tusaale ahaan waxyaabaha hadhka ugu jiray hadhkii waa uu ka saaray waxaan uu ka dhigay sawir HD ah oo aad iyo aad run ahaantii tayadiisu aad iyo aad u fiican tahay ninkii Afrikaanka ee madooba imka waxaad moodaysaa jirkiisa in xaadiisa la akhri karayo haddii aan halkan si fiican ugu arkayn telefoonkaaga insha Allah ku tasti karayn doontaa ama ku tijaabin doontaa halka hoosta sida kaaga muuqata 70% ayuu AI-gani uu kor u soo qaaday tayadiisa kor baad u sii wadi kartaa ilaa 100% baad gaarsiin kartaa
laakiin boqolkiiba 70 kaasaa fiican inkastoo mar walba ay ku xidhan tahay sawirka adigoo aad arkaysa iyo xaaladiisa mar walba isbedelka ku dhacaya halkan aad ka arkaysaa sida awgeed haddii aad rabto waad boqolkiiba boqol baad ka dhigi kartaa ama waad ka yareyn kartaa mar walba sida adigoo aad u aragtay ku xidhan tahay waxaan rajeynayaa qaybta inaad si fiican u fahantay haddii aad wuxuu naga faa'iiday asxaabta la sii wadaag insha allahu tacaala tan intaynu ku kulmi doono muuqaalkan oo kale la mid ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh